saarin. Allahu akbar. haddaan qoomkaaga ay ka bixin wuxuu doonayay ilaa uu ka dhinto inuu halkaa joogo. wuxuu doonayay inuu ku sabro, inuu dhibkiisa ku sabro, qorraxdiisa ku sabro, gaajadiisa ku sabro. xaguu aadaya haddaanu dhulkiisa ku sabrin? waa maxay dhalinyaradan cararaysa oo u cararaysa dhulalkii gaalada, u cararaysa cayaarka beenta, u cararaysa ka cararaya dhulkoodii hooyo, dhulkii waalidka ahaa ka cararaya. war dhulkan haddaad ka carartaan yaa soo degaya? soo looma baahneen hooyada hadday gaajaysan tahay adaa wax siin lahaa. aabbaha waalidka hadduu gaajaysan yahay, hadduu aradan yahay, hadduu ooman yahay, hadduu cudur qabo, haddii uu baahan yahay, yaa la rabaa inuu garab taagan yahay. dhulku wuu daalay, xaggee loo cararayaa? in loo sabraa la doonayaa dhulka. maxaa yeelay sabraa sadhela ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. haddii aad sabartaan, dhulkiina u sabirtaan, gaajadiisii aad ku sabirtaan, idinka aad ku shaqaysaan, akhiiran wallaahi taasaa idin khayr badan. cizigiina iyo sharafkiina inaad ku soo ceshan kartaan. qof walba dhul yaa dhisa, dhalinyaradaa dhista. odayaalku waa caqli, xooggu waa dhalinyaradii. innagaa laynaga rabaa inaynu dhisno. nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam, nabi muxamed eeg markuu tagay madiina waatuu u ducaynay oo uu leeyahay ilaahow dalageeda noo barakee, ilaahow beeraheeda noo barakee, ilaahow noo barakee beegeeda, ilaahow noo barakee hawadeeda, ilaahow noo caafi. waata ilaahayna ka aqbalayo. qofka waxaa la rabaa dhulkiisa hooyo inuu u duceeya la doonaya. maceeb baa dhulkeena inaan jeclaano, maceeb baa dhulkeena inaan u ducayno, dhulkeena inaan u shaqayno nadaafadiisa, ka shaqayno caafimaadkiisa, ka shaqayno wacyigelintiisa, ka shaqayno nabadgelyadiisa, ka shaqayno. waa waxa lagu faano, waa waxa rasuulka 23 sano sallallahu alayhi wasallam isaga iyo saxaabadiisa ay ku faanayeen, ay u soo jeedeen inay maka nabadgeliyaan. tan afraad, dhalinyarada iyo social media. walaalayaal, social media waa nicmo ilaahay ina siiyey. social media waa nicmo ilaahay ina siiyey. waa aalad laba maaragtay af leh. waa nicmo in anagoo imika hadlaynaa nalaga maqlayo caalamka oo dhan. nicmo walba maxay u baahan tahay in ilaahay inoo waxay u baahan tahay nicmo walba in lagu shukriyo, si laynoogu dhowro, si laynoogu ilaaliyo, si laynoogu daa'imiyo. waan u baahannahay social mediaha, laakiin waxaad ogaataa waxa aynu ku qorayno social mediaha, waxa aynu ku akhrinayno, waxa aynu eegayno, waxa aynu ku hadlayna dhammaan waa xisaaban yihiin. ilaahay agtii bay ka xisaaban yihiin. hadalka wax waa lagu dhisaa, waxna waa lagu dumiyaa. noqda kuwii hadalkooda wax ku dhisa. maxaa yeelay ilaahay baa dhahaya waina calaykum laxaafidiin. social media aad u maqla, waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun. ilaahay halkaa wuxuu idiin yeelay waa maxay? malaa'ig buu saaray, raqiib iyo catiid la yidhaahda, diyaar ahoo ilaalinaya, qoraya af iyo adin waxaad ku hadlaysaan. waa la qorayaa waxa kan. awal malaa'igtaa la dhahayay waxbay qoraysaa, laakiin waxaad ogaataan maanta idinkaa qoraya, idinkiibaa malaa'igta ka badiyey. war waxa aad ku hadlaysaan ee aad duubaysaan ee aad sheegaraynaysaan, waxaad ogaataan waxaa lagu darayaa kuwa malaa'igtaa lagu darayaa. berrito markaasaa lagu dhahayaa اقرأ كتابك كا 24 ساعة dhex fadhiya media xumaanta fidinaya, dadka isku diraya, ka shaqaynaya namiimyada, ka shaqaynaya fasahaadka, fisqiga iyo fuxshiga ku fidinaya, maqal iyo muuqaal. waxaa lagu dhahayaa markaad dhimatid, qiyaamuhu ma dheera, caawa haddaad dhimatid kitaabkaaga lagu kala bixinayaa. waxaa lagu dhahayaa اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسب. eeg ilaah baad ku dhaashay kitaabkaaga akhrisa. markaasaa waxaad leedahay intaad yaabtid ilaa shalay wixii aad samaysay waad ilowday, daraad waxaad duubtay waad ilowday gabadhaada, wiilkaaga sidoo kale habeen hore wixii aad duubtay fuxshiga ah waad ilowday, laakiin ilaahay ma ilaawin, ma uunan ilaawin. markaasaa waxaad
dhahaysaa maa lihada alkitaab laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha. waa maxay kitaabkan aanan ka tegaynin wax yar iyo wax weyn? soo ma ogid addoonkii alla waa doontii allay waxaa ninka xumida wadaa ee si xun intuu u hadlo si xun beeni barobagando keena markaad u sheegaraysid adigoo xataa dadka tusaya waxaad ogaataa inaad ku dembi tahay, inaad la mid tahay isaga oo kale aad tahay. kumanaanka fiirsanaya ayaad adiguna ku dembi tahay. ogow eeg dadka maanta xumida ka wada social mediaha inta daawanaysa lifeka eeg waa kumanaan weeyaan, laakiin culimadii iyo khayr wadayaashii sama wadayaashii eeg beejajkooda markay hadlayaan qaala allah qaala rasuulullah 10 20 30 ruux waxaan boqol gaaraynin baa daawanaya. waxaa meesha iiga caddaatay in ilaahay uu leeyahay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu fattabacuuh ilaa fariiqa min almu'miniin. ibliiska dhaartiisii wallaahi wuu ka dhabeeyey uu ilaahay u dhaartay oo uu yidhi ninkanaa dartii jannada iiga saartay ilmihiisa wallaahi kuma caabudi doonaan bal qayb baan yeelan doonaa aniga i caabudda, qayb aniga aan ilaahay u noqdo ayaa waa ibliis waxaa dhahaya qayb aan ilaahay u noqdo oo caabuda xaalkooda afkoodii addinkooda igu caabuda ayaan yeelanaya. ma ka dhabeeyey mise ma ka dhabaynin? ilaahay wuxuu leeyahay ibliiska wuu ka dhabeeyey walaqad sadaqa calayhim ibliisu danna fattabacuuh. way raaceen, way wada raaceen ilmihii aadam ibliis bay wada raaceen, way wada raaceen. yaa diiday ilaa fariiqan min almu'miniin in yaroo mu'miniin ah. waa intee? waa 10ka 20ka 30ka 100ka daawanaysa maaragtaaye tafaasiirta daawanaysa wanaagga daawanaya dhegaysanaya culimada weeyaan. intan baqbaqlahan baqbaqaaqa ah shaydaankan akhraska ah ee fasahaadinaya fuxshiga wadaa ninkan kumanaanka daawanaya waxaad ogaataan isagoo kale inaad tihiin xir shaydaan. dhimashadana garantii ma aha inaad toobad keenaysaan. war toobad keena, social mediaha ku dhisa dadka adduunka, dhalinyarada adduunka dadkooday ku wacyigeliyaan. waad aragteen usbuucan keliya howlkaa sahal ilaa iyo sabtigii jimcihii hore ilaa jimcahan social mediaha khayrkii lisugu gudbinayay waa kuwan qalbiyadan soo baxay weeyaan. waxaad ku wada xiriirteen oo aad khayrkan isugu gudbiseen waa social media. sidaana loo baahan yahay. maanta waxaa ii caddaatay waddankeena inaad dhisan kartaan. maanta waxaa ii caddaatay wadajirkiinna iyo isjacaylkiinna iyo qalbigiinna iyo xiriirkiinnan aad social mediaha sida wanaagsan u isticmaasheen ee aad isugu soo baxdeen inaad ku dhisan kartaan waddankiinna, inaad qarankiina ku ilaashan kartaan, inaad midnimadiina ku ilaashan kartaan, caalamka aad ilaahay hortii aad ku dhihi kartaan waana kan annagoo u taagan midnimadeennii, annagoo qarankeenni difaacanayna, wadajirkeenni iyo midnimadeenni difaacanayna. walaalayaal social media ha laga faa'iidaysto, sida wanaagsan ha looga faa'iidaysto. qodobka ugu dambeeya ee aan ku yara dheeraan doono waa kaynu u ballansanayn cafi walaalka. cafiska waxaad garanaysaan walaalayaal waa cizi ilaahay hortii, waa sharaf, waa midnimo, waa farxad, waa fudayd, waa horumar. ciziga sharaf maahane wax kale xafisku sharaf maahane wax kale ma keeno. waxaad garanaysaan oo aan maanta idinku bishaaraynayaa horena aad iiga maqasheen idaylkiin maanta wallaahi uma wallaahi imaanshaha aad imaadeen halkan quruxdaan aad qabtaan, quruxdaan aad u fadhidaan iyo edabtaan wallaahi maanta waxaad ku kasbanaysaan dembi dhaaf iyo 8 janno jannaad cardigoodu ka weyn yahay 7 sama. wallaahi dhaar baan marayaa, dhaar baan marayaa, wallaahi dhaar baan marayaa. maanta fadhigiinnan iyo imaanshihiinnan waxaad ku kasbanaysaan dembi dhaaf iyo jannaad ka weyn 7 samo. ilaahay baa dhahaya, anigu ma aanan dhihin. ilaahay waa ka u dhahayo wasaaricuu ilaa magfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
soo degdega oo u soo kaalaya dembi dhaaf iyo 7 janno 8 janno u kaalaya jannaad cardigoodu samaawaadka iyo dhulalka ay ka weyihiin u soo degdega yaa loo diyaariyey jannaadkan iyo dembi dhaafkan waxaa loo diyaariyey dadka muttaqiinta dadka ilaahay ka baqaaya maanta waxaa ii cad qalbigiina cabsi ilaahay inay ku jirto ilaahay baa inoo sheegaya jannaadkan iyo dembi dhaafka haddii cabsi ilaahay lagu helayo war cabsida xaggeen ka raadinaa cabsida inoo siinaysa jannaadka cabsida dembigeena lagu dhaafayo xaggeen ka helaynaa isaga haddana inoo sheegayo dhahaya wa an tacfuu aqrabu littaqwa allah وأن تعفوا إن عفسد ولالكا ولاشا كان دوغي كان دير كان نولي كان بنتي كان كدلمي إن عفسد عفس كاسا ودو إن متقين كن قطان عبسيات كوهشان عبسيات جنات يدن بداف كوهليسان الله أكبر ما أنت وحالينا سينا يا عذر كان يندلودي انتقام كاه أرسقاه عذر كان ظلمقاه عذر كان حسدكاه عذر كان هناك لجيي عافمات كيسيبا ما أنت لينا سينايا فريه أين كورة داوبي لحين أيو إلهي ما أنت إنو ديبيا يا لو ديبياك وكودها يا كميدا هرت ددكا يغا متقين تا إلهي جنات كجينيا وحا كميدا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين kuwa marka la dhibaateeyo dhib la soo gaarsiiyo aanan xanaaqin caradooda uurka ku qariya allahu akbar kuwa caradooda qabta ku guba caradu waa dhimbil qofka ilaaliya uurkiisa dhimbisha ku damiya kuleelka ka dareemaya ka xanuunka qarsanaya oo walaalkii cafinaya maxaa ilaahay siinaya 8 janno ilaahay siinaya la ilaaha illa allah maxaa lagu dulmay gabadhaada maxaa lagu dulmay hooyada maxaa lagu dulmay adiga maxaa lagu dulmay aabaha wiilka ay soo eegay adiga kula hadlayay maxaa lagu dulmay adiga kuwiina fadhiyaha doobadabaya kuwiina murugaysan kuwiina qaylinaya harsalla ladila war maxaa culayska ku haysta maxaa lagu dulmay waxaa lagu dulmay waxaaba adduunya laga qaatay guri adduunya laga qaatay waxa laga qaatay waa ceel adduunyo waa gaari adduunyo waa shilimaad adduunya xaabo ayaa laga qaatay iyo ayaa laga qaatay laakiin ilaahay subhanahu wuxuu doonayo xaabadan inuu kugu bedelo jannad ayuu doonaya allahu akbar ma la aynun raat wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar waxaan maqlin dhagu arkin yaa bini aadam ku soo dhix buu kugu bedelayaa shilinka yare laga qaatay wuxuu ku dhaxshiinaya walaalka oo aad maanta cafisid ilaahay darajo maanta ku siinaya muttaqiin buu marka hore ka dhigay haddana ilaahay wuxuu ku siinaya darajo la yiraahdo ihsaan darajo la yiraahdo ihsaan kana waa darajada ugu sareysa darajo la qaata islaamka ka sareysa iimaanka ka sareysa والله يحب المحسنين إلهي وجعليهي محسنين إلهي وجعليهي محسنين واكوه ولا الله ضعفية عرضنا الله تذكو قرية رسولك الله صلى الله عليه وسلم يهودي مركي دبتي أو أي دلال oo ay jabiyeen fooshiisi oo ay caayeen oo ay dhibaateeyeen ka soo cayriyeen quraysh ay ka soo cayrisay makka markii arab iyo ajam iyo yahuud ay isugu tageen xabiibkaaga sallallahu alayhi wasallam ayaa la dhaxyaa isagoo ciilaysan saxaabadiisii la laayay oo la dilay oo la jirdilay oo la xirxiray oo la bahdilay ayaa la leeyahay fa'fu anhum wasfah inna allaha yuhibbul muhsinin عفي بالله او سامح كون محايل سامحوا معها اللي دناشو إناد عفسا معها عيب معها دل النمى معها بل
وعزي يا الشرف عفي بالي إن الله يحب المحسنين إلهي كو إحسانك سمية أو عبادة إحسانك كل رغما أنا أرسن إلهي واجعلي جعلك إلهي هيك محل وهلايا hadduu ilaahay ku jeclaado addoonka allow seebaad muxuu ku siinayaa cafiska waa kan waa marka hore wuxuu leeyahay addoonkayga markaan jeclaado oo warkayga uu maqlo waxaan u noqonayaa indhihii uu wax ku arkayay indhahaaga xumaan dambe arki mayaan dhegihii uu wax ku dhegaysanayay dib dambe dhegahaagu xumaan ku dhegaysan maysid afkii uu ku hadlayay gacmuhu wax ku qabanayay lugihii uu ku socday ayuu maaragtaa ilaahay u noqonayaa waxaa ka sii daran والله بوليه يا الله هدي وحي ويديستو الدون كان أنجع لاذي والله وانسينا يا هدي وحي ويديستو وانسينا يا هدي وحي يما ينقلنا وانكما ينقلنا يا دهيا إلها بلنتي سوي فيها دهيا وحدهيا إلها أود له وحنا كدفاع كرو وحنا كسين كرو معين وقادن لنا إلهي بدكو داريه اك فضيلة يضا نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وحو سميي وقاتي عفس كاسو قاتي إلهي بادهيا داد كان كردمي كدلي كفوغيي كحسدي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وعلى دهيا عفس كقادو هدي سوكاتي مادو إناد عرساتو إناد عفسو قاد عفسك معايا لعفسك كوناكسن عفسك يا كوناكسن إن عاد عرستد عفسك كوناكسن إن عاد ولالك أوركسي مرقلسد حمدي لقو قيست حمك ليناد كوارتد معايا لي وادلاد عيناد عفسد ولالك وادلاد عيناد عرستد وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين هدي ليدن عقابه إليق ليدن كردو قف ليدن كدلو واتكدلن كرتان إليق يوريدي كرتان إيش يوريدي كرتان لكن ما خير بايدن كوغسوان نفس هذا إي شيطان آيات أودن إيسي مركا آيات أهيل إيسي مركا لكن إلهي مدونيو هدي وح ليدين ديمو هدي دل ليدين جيسو هدي ليدين دلمو إلهي وحوليعي دادك الله دلمي صبران ميل بو دياري إلهي وحو دياري عفس وحو دياري جنات حور العين يو دياري ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وعلي يري حداد صبرتان إلهي درتي وعفسان إلهي وحو يدين دياري محي تاسا يدين خير بدن وجنات ويدين دياري ايغا إلهي بلمه إنو قادا ولا ليال ووحا إنو رادين إنو ويان نبي محمد وادقرنا إسان مكة دي دشي مكة دي صوتورتي مكة دي عيرسي مكة دي بدر إيا أحد إيا خندق وقدوا تيمت ولدقاشي مالكي أوفري سندي مركي أوتقي أوفري محاد حي مر الله مركو فري محو سميي ددكي ديلي أيو أتغي ددكي ديلي أيو أتغي مر الله لي مركو أتغي محو سميي وحو يري ما أنت محادق في ليسان dad yahow maanta maxaad iga filaysaan waa dadkii dilay xamsa waa dadkii guryihiisii dhacay maxaad iga filaysaan ayuu yidhi muxuu ku yidhi waxay yidhaaheen qaaluu khayr baanu kaa filaynaa bay yidhaaheen allahu akbar khayr ayaanu kaa filaynaa akhun kariimun wabnu akhin kariim walaal baa tahay wanaagsan waxaa tahay walaalkeena wiilkiisii baa tahay allahu akbar muxuu yidhi اذهبوا فأنتم الطلقاء حرباتهين تقى اكسدوا وعفين يا رسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر نبي الله يوسف عليه السلام نبي الله يوسف وادقرنا إنسان دادك عيلك كرلي نبي دادك عيلك كرلي هيك dadkii ceelka ku riday muxuu sameeyey ceel baa lagu riday intaasoo sanay dulmayeen mar allaaliyo markii la dulmay ayaa walaalihii muxuu ku yidhi walaalihii intay u yimaadeen ayay uyu xafis bay weydiisteen markaasaa wuxuu yidhi laa tathriiba calaykum alyawm
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما أنت ليدن تقالي مايو ما أنت والدن عفيي يودحيا وادتك عيلك كردي ويان معال بالغو كردي أديقا معال بالغو كردي أديقا ما دبعتي النبيالك أن لقارسين بالغو قارسيي maxaa loo baahan yahay marka inaynu ku dayano nebiyadeenna inaynu ku dayano rasuulkeenna nebi yuusuf iyo nebi moxamed nebi ibraahim inaan ku dayanaa loo baahan yahay. walaalayaal aad iyo aad baan runtii idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad ii daawanaysaan aad ii dhegaysanaysaan. waxaan rabaa marka miraha cafisku leeyahay inaan idin siiyaan doonayaa. haddaan cafiyo walaalkay maxaan helayaa? rasuulka waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam man kadama غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. الله أكبر. قفك عرضيس قرية قفك قرية عرضيس ولالك عفيا isagoo awood u leh inuu ka aarsado waxaa la yidhi ilaahay qalbigiisa wuxuu ka buuxiyaa iimaan iyo amni iyo nabadgelyu ka buuxiyaa. allahu akbar allahu akbar. wuxuu kaloo leeyahay alla eeg ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هدي حما لغو قيستو هاو قيسنن هدي لغو قويا حقوينن هدي لغو حمايو حمينن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع ديب بالتي هي أحسن. xumaanta lagu geystay mid ka wanaagsan dhiib. haddii lagu dilo oo ilmahaagii la dilo adiga noole haddii lagu dulmo adiga cafi haddii lagu gooyo xiriiri oo waxyaabaha diinteenni aynu ka dhaxalnayna baraysa weeyaan. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar. diinteenna maxaa ka cizi badan diinteenna maxaa ka sharaf badan diinteenna maxaa ka naxariis badan diinteenna maxaa ka qurux badan diinteenna maxaa ka cafis badan. ادفع بالتي هي أحسن. هدي لغو حمايو حماينن هدي لغو ظلمو هظلمن هدي لغو دلو هدلن هدي لغو فوقيو هفوقينن. ادفع بالتي هي أحسن. ومحان كهل يا مركايضا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كي شري كو قويي كو ظلمي كو ديلي كو دكري كو خياني وحابدار كيسا دقيقة كدب استغو صاحب qaali ah isagoo ku jecel isagoo ku adeegaya darkaysa waadna aragteen social media aad ka aragteen waliba isbuucii hadda aabad ka aragteen. bal hal isku dayo cafiska waxaad ku kasbanaysaa amni nabadgelyo waxaad ku kasbanaysaa iimaan waxaad ku kasbanaysaa walaal fiican waxaad ku kasbanaysaa oo uu leeyahay rasuulkeena sallallahu alayhi maya xadiis alqudsi oo bukhaari warinayo waa ka uu dhahayo ilaahay idaa aradtum رحمتي فارحموا خلقي. الله أكبر. هذا دون إنسان رحمة جيدة هذا دون إنسان أوركينا نحرسنا نقليو نحرسنا واتنجنا ذلقو قلب هذا دون إنسان أوركينا هنا نجلعيو هنا نجعيل إذن نحبيقو إلهي بادحية ونحرست خلقي جيجا ونحرست عيال كيجا نقضى كوان فع عيال كيجا. الله أكبر الله أكبر. وعن ربا ولا ليال قصة آد وقرح بدن أن أنيق لكل مي عفسك كصابسا إن إذا لا شجرين دونايا مال المحكمة ده مقالة نيروبي أنيق جوجا هبين هويين محاضرة وقبنايا أيا عفس كان كهد ليين عفس كان سنوين بنسوذي وحن وقع العلينا يمر هذه معنا بناركي إن إلى أركتان بندر أيام دونايا إيك وحن أركي هو يويله أو ييسه أنا وان هدليا يدينا فقدي بكدماتي هو يدي أو ييسه وان حي وحن يسرمي حنون سنتهي وان جوجي وحن هويو يمكن الله نحرسته هويو محد له ييسه وحي تري هويو
eega hadallada quruxda badan waxay tiri hooyo waxaan la ooyayaa waxaan isqabadsiin la'ahay isu keeni la'ahay cafiska aad ka hadlaysid adiga iyo xaaladayda aniga waxay tiri magaalo ka mida magaalooyinka Soomaaliya ayaa wiil yar inta bam loo soo xiray ayaa liigu soo diray qolooyin ay wax naga dhaxeeyeen ay ugu soo diray wuu soo ag fariistay wiilkii yaraa bamkii ayuu isku qarxiyay wiilkii wuu dhintay anna waan gubtay bay tiri dhinac baan eber ka noqday wiilkii wuu dhintay anigana ilaahay maadaama aan noolahay waxaan cafiyay wiilkii yaraa ilaahay baan u baryay dambigiisa inuu dhaafo ninkii nafsadayda u soo dhigtay ee ilaahay iga badbaadiyay waan cafiyay laakiin waxaan cafin lahahay inkaar qabayaal shayaadiin ah oo qaraabo aan nahay xigta iyo sokeeye aynu nahay yurub baan ka soo shaqaystay baraf soo xamaalay kis yaroo aan keenay ayaan u dhiibay 100,000 oo aan iri ilmaha inaan soo celiyaan doonayaa guryo ii dhisa guryihii bay ii dhisi waayeen xoolihii bay iga dhaceen doolarkii baa kacay waa la khasaaray waxbaa si noqday maalin walbana guryihii way dhisayaan dad bay siinayaan anigina xoolahaygii way dhaceen waan ka soo saari lahahay seen u cafiyaa daalimiintan i dhacay way ooyaysaa hooyadii oo intii bay sii kordhisay seen u cafiyaa mar walba oo aan arka iyagoo gadgadoomaya gawaare ku socda raaxaysanaya guryo iibinaya 1,000 jeer ayaan dhintaa seen u cafiyaa hooyo sidaasoo kale lagu dhacay wiilkaaga sidaasoo kale idinka laydin dhacay oo laydin dulmay oo xoolihiinni loo leexsaday sidaasoo kale dhulkiinni idinkaga fogeeyey sidiinoo kale uurkiina xumaan loo geliyey hooyada keligeed ma aha waynu isdulannay Soomaaliyeed waxaan ku yidhi waad cafinaysaa baan ku yidhi sababtoo ah waxaadan aqoonin cafiska doorka u ciyaarayo cafisku waa awood cafisku waa quwad waxaan idhi dadkan aad ka qaadan laadahay xoolahaagii gacantan daalimada ee aad xoolaha ka qaadan laadahay cafiska wuxuu awood u leeyahay idinkuna waa idin leeyahay dhegaysta haddii laydin dulmay xoola laydinka qaatay ceelal iyo dhulal laydinka qaatay beero laydinka leexsaday haddii wax walba laydinka qaatay cafisku wuxuu awood u leeyahay maadaama awood darri halkan ay ku dhigtay taagtaadii daraatay cafiska wuxuu leeyahay awood inuu daalimiintan idinkaga soo qaado xoolihiinni ممادي أهان حابدان ويدين سوقاضيا ميو كوي حاب إنو قاضو حابادو يهينو يدين سو ورجيو بل حوليهين انتو قعنتان ظالمات دا يدين كو ورجيو أيو قعن إلهي أو نظيف أو أود له أيو إلهي يدين كو ديبايا كدمنا إلهي باكو كورينايا قرق لغاد دعي أيو كورينايا كو بذنايا بيرت لغاد دعي أيو بذنايا الله سبحانه وتعالى كدمنا مالك قيامها وحال نعموين كان فرح بدن هذاله وواسده وبغلك دولار ياد عفسي ووحي يراي حابدي الدوية عفسك هلكا ايك رسول كان صلى الله عليه وسلم ايام مال وشيكين يا صحابه مركاسو هل مرعرك فيرنايا او دحيا كورنتو فيريو ايو قسلايا عمر بعدها رضي الله عنه وارضاه محد لقسليس رسول الله وحوليه هي لبادون ايا اسدلمتي حتى ميزانك ولا صارايا قيامه إلهي هرتي بجلب وفديان والله بني ودونك اسدلمتي لبا يا اسدلمتيك إلهي هرتي ايي فديان مد بعدها يا إلهي ولكن هو يدلمي حولو إيغا قاتي ناف بو إيغا دلي هو يدلمي إلهي إيغا قاد بولياي إيغا قاد مركو دحايا ورني كان حسنات كيسي ودماودو ولا كلا قاتي وحبا ما هي معان كو سميا وحولياي دنبي صار رسولك مركز وينا صلى الله عليه وسلم مركز إلهي كلا دح قلايا إلهي بعفسك بلابي هيك ننكي با جنة الله فرايا مظلمة لقى هيستي وحال دحيا هيك حق ما حد كواركها مركز ولي وحن كواركا جنات حور العين ايام كواركا وحن اركا وبيالو وحن اركا جيد الذهبة وحن اركا وحن دوه باهينا يعرك اندوهم ما يعرك قلبي قوة بني ادم كصودين دق بني ادم اني مقل نعيم بان اركابو لياي مركز دحيا وحا اسك
yaa iskale buu leeyahay ma rasuul baa leh ma ambiyaa leh ma saalixiin baa leh ma shuhadaa leh maye waxaa leeyahay ninkii gataa iskale oo yaa gadan kara xuuralciin waxaa la leeyahay adaa gadan kara maxaan ku gadan karaa walaalkaa oo aad cafisid allah walaalkaa oo aad cafisid waxaad ku helaysaa jannaadkaa sideedda aad ku helaysaa hooyadii markay hadalkaa maqashay waxay tiri sheekhow markhaati noqo hooyo gabdhayahow markhaati noqda wallaahi waxay tiri kuwan i dhacay sanooyin aan cafin lahaa uurkaygii ooyey murug geliyey waan cafiyey ilaahay dartii baan u cafiyey adduunyo maahay aakhiraan cafiyey allahu akbar allahu akbar anna waxaan ugu bishaareeyey gabadhaas eeg $100,000 $200,000 xaabada adduunyo waxay ku bedelatay maxay jannaad bay ku bedelatay adiga waa lagu dhacay waa lagu dulmay dhul iyo waxaa lagugu dulmay beer oo lagaa qaatay xaabadan adduunyo diyaar ma u tihiin inaad ku bedelanaysaan jannaad sideeda diyaar ma u tihiin qof walba oo la dulmay inuu walaalkii cafiyo diyaar ma u yahay diyaar ma u yahay inaan duceeyaan doonayaay diyaar ma u tihiin intiina iminka halka joogta inaad iscafisaan diyaar ma u tihiin inta diyaarka ah idinkoo raalli iga ah ha istaagaana gacmahana ha taagaana allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa cafis guud allahu akbar qalbiga ma iska cafinay qalbiga ma iska cafinay walaalaha dhintay ma cafinay kuwa nool ma cafinay kuwa dhintay ma cafinay kuwa fog ma cafinay adduunyo iyo aakhira allah idin cafiyey fariista allah idin cafiyo ilaahay adduunyada ha idin cafiyo aakhira allah idin cafiyo kuwa jannaad gala allah idinka yeelo dembigiina allah dhaafo culayska allah idinka qaado ilaahay waxaan ka baryay dhalinyaradan maanta garbahayga taagan dhalinyaradan uurkayga farxadda geliyey dhalinyarada ilaahay waxaan ka baryaaya ilaahay wallaahi keligeena maahin wallaahi keligeena maahin halkan malaa'ig baa inala joogta ilaah malaa'ig baa inala joogto ina wehelaysa malaa'ig baa aaminsanaysa culayska allah inaga qaado culayska allah inaga qaado culayska allah inaga qaado albaabada khayrka allah inoo furo waynu harnay ummadihii ka harnay cizigeena allah soo celiyo diinteenna allah nagu soo celiyo dhalinyarada inta xanuunsan ummadeena allah caafiyo inta xanuunsan allah caafiyo qaar baa xanuunyo xunxun qabe allah ka caafiyo qaar baa qoorta iiga soo xiray ducada oo xanuunsana ilaahay ha caafiyo intaan xanuunsan bukaan jifi bukaan socod allah ha caafiyo ilaahay waxaan ka barya dhalinyaradeena intaana guursanin guur xalaala allah ha siiyo guur ay ku dhowrsadaan ay ku degaan allah ha siiyo guur ubad saalix ay ku helaan allah ha siiyo ilaahay waxaan ka baryay inta xiran allah ha soo daayo inta xiran allah ha soo daayo inta xiran allah ha soo daayo inta maqan allah ha soo ururiyo ilaahay inta murugaysan farxad uurkooda ha geliyo ilaahay waxaan ka baryay culimadeenna kor allah ha yeelo waxaan maanta ku faanayo oo aan ku socdo oo aan runtii madaxa ii saaran waa culimadeenna kuwa dalka joogay kuwa dibadda joogay ilaahay culimadeenna cimri dheer ha siiyo cibaadasana allah ha siiyo culimadeenna ducadooda allah hayna siiyo waxaan idinka codsanayaa inta halkan joogta waxaa la ii sheegayaa intoodii bannaanka inay taagan yihiin waxaan idinka codsanayaa qalbiyadan quruxda badan ee sida quruxda badan u dhegaysanaya maanta marka la baxayo gabdhaha waa in la dhowraa maxaa yeelay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wixii ugu horreeyey uu istaagay wax xuquuqda gabdhaha ayay ahayd maalinkuu dhimanayay waad
garanaysaan wixii uu ka dardaarmay gabdhaheenna waa sharafkoodii allah soo celiyey gabdhahan waa walaalihiin gabdhahan waa xaasaskiin waa eedooyinkiin waa habaryarihiin waa hooyooyinkiin waa feer laydinka sameeyey feertiina ayaa laga sameeyey inaad qawaariirtan inaad ilaalisaan baa lidinkaga baahan yahay guryahoodii si nabada inay ugu tagaan baa loo baahan yahay maanta quruxdan aad ku timaadeen akhlaaqdan aad ku timaadeen waa la duubayaa oo waad arkaysaane ilinkaana lagu qabanayaaye ha idinka muuqato ilaahay waxaan ka baryey qof walboo walaashii caawiya si nabada ku caawiya ilaahay waxaan ka baryo ixtiraamo qadariya maalinka qiyaame macal xabiib allah la soo saaro diyaar muutihiin gabdhaha ha hormaraano kadibna idinkaa baxaya ilaahay waxaan ka baryayaa maanta halkaanaynu ku kulannay meel ka qiimi badan jannaadka jannatulfirdows maca alxabiib allah isugu kaaya geeyo aad baan idin jeclahay adduunya aakhira jacaylkaas waxaan rabnaa jannaad inaan ku tagno maalinka labada isjecel ilaahay dartii isu jecel halkaa harkaa ay harsanayaan ilaahay hayna wada geeyo aad baan idin jeclahay waxaan isku ognahay waa maxay shantii qodobaan isku ognahay oo ah diinteena inaan u soo noqonno qarankeena inaan ilaalinno waddankan xil baa naga saarana inaynu dhowrno social mediaha inaynu si fiican u isticmaalno inaynu iscafinno astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan marka hore u mahad celinaynaa sheekh maxamed ajri xasanaad allah kaa siiyo annagana allah nagu anfaco dhegaystayaasha ballanta qaaday waxaa laga doonayaa inay oofiyaan alla dartiisu oofiyaan ilaahayna dembidhaaf ku weydiistaan sidoo kale shiikhu markii uu baxo haddii alla yidhaahdo waa bixi doonaa ilidda xaggaa xigta raggaa ka bixi doona gabdhuhuna waxay ka bixi doonaan ilidda weyn fadlan yaan la cariirin dumarka ha laga baxo ilidda dhinacaas xigta raggu ha ka baxo dhinaca kaletoodna gabdhuhu ha ka baxaano shiikhaan maxaa salaamaynaynaa waa maasantaa shiikheennii ajri xasanaad allah ku siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu